الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله جل وعلا أيامها تسكاله نقد جيدة مسلمين هدانا نقد جي أمدي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دروستين رمضانية أيام كجرنا حلقة وحان كجهت للدونا إن شاء الله تعالى صلة الرحم، قرابة والحريريو محاونك بدن محاكونك بدن بالرمضان أنا كجرنا هدانا عن حريرين قرابة. إلهي جل وعلا iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalama waxay nagu dhiirigeliyeen qaraabada booqashadoodii iyo xiriirintoodii. qaraabada inaan goynana way noogu digeen. liajli daalika qofka qaraabada xiriirinayo ilaahay baa xiriirinayo, qofka qaraabada gooyeyna ilaahay baa goynayo. waata nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, raximka ama qaraabada ayaa wuxuu ku dhigay carshiga ayuu ku dhigay isagoo ilaahay magangalaya tabaaraka wa tacaala. ilaahay markaasuu ku yidhi: man wasalanii wasaltuhu waman qatacanii qatactuhu. riwaayo kale: amaa tardayna an asila man wasalaki wa aqtaca man qatacaki. miyaadan raali ku noqonaynin qaraaboy inaan xiriiriyo qofkii ku xiriiriya, inaan gooyo qofkii ku gooya. allahu akbar. ilaahay jalla wacalaa xiriirkiisa waxaad ku heli kartaa adigoo qaraabada xiriiriyey. haddaad qaraabada goysane ilaahay ayaa ku goynayo subxaanahu wa tacaala. sidaa darteedii nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalama isagoo na jecel siinayo ama na jecel gelinayo qaraabada inaan xiriirino ayaa wuxuu leeyahay: man axaba an yubsata lahu fii risqih wa yunsa'a lahu fii atharih falyasil raximah. man axaba an yubsata lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximah. qofkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo, cumrigiisana loo dheereeyo, qaraabada a xiriiriyo. ma doonaysaa arsaaq waasica? qaraabada xiriiri. ma doonaysaa cumrigaaga ilaahay inuu dib u dhigo dheereeyo kuu barakeeyo? qaraabada xiriiri. intaasoo dhan waxaad ku heli kartaa qaraabada adigoo xiriiriyey. weliba gaar ahaan kuwa ku goynaya inaad xiriirisid. nafta ma jecla qof ku gooyey inaad adiga u tagtid, nafta way dhibsanaysaa. laakiin ku qasab, ku ijbaari, ku dhib, waxaad ku helaysaa arsaaq waasaca iyo cumri dheer. weliba qaraabada xiriirinteeda waxaa ugu fiican kii ku gooyey inaad xiriirisid, kii wax kuu diiday inaad siisid, aad ka roonaatid. allahu akbar. waa sifaat wanaagsan weeyaan. waaladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal. yacni waxaa weeye kuwa ilaahay wuxuu amray ay xiriirinayaan in la xiriiriyo. wixii ilaahay in la xiriiriyo uu amray bay xiriirinayaan buu yidhi ilaahay jalla wacala. kuwa qaraabada goynayana ilaahay wuxuu ka cabiray: fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lard watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allah faasamahum wa acmaa absaarahum. ilaahay jalla wacalaa wuxuu yidhi: ma mudan tihiin haddaad jeesataan oo haddaad jeesataan inaad qaraabada aada goynaysaan oo dhulka aada fasahaadinaysaan? ma mudan tihiin? kuwaas dhulka fasahaadinayo ee qaraabada goynayo, qaraabo goyska ah, ilaahay baa lacnaday. lacnad ilaahay ayaa dushooda ku dhacday. ilaahay wuu dhiga tiray, wuu indha tiray. dhigahoodii kheer kuma maqlayaan, indhahoodina kheer kuma arkayaan. maxaa yeelay ilaahay baa dhiga tiray, indha tiray. marka lacnadiisana way ku dhacday. laakiin waxaa liiwaanay qofka qaraabada goynayo asaga xiriirinayo. qaraabadiis way goynayaan, wuu xiriirinayaa. nabigaa nin u yimid sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku yidhi: yaa rasuula allah, ina lii qaraabatan asiluhum wayaqtacuunanii wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilay. maxaan sameeyaa yaa rasuula allah? anigu waxaa ii sugnaatay qaraabaan leeyahay buu yidhi.
qaraabada waan xiriirinayaa way igoynayaan, ixsaan baan u samaynayaa way i xumaynayaan, wax baan siinayaa way ii diidayaan, maxaan sameeyaa yaa rasuul allah? nabigu wuxuu u jawaabay sala allahu calayhi waaalihi wasalam, arrinka sida aad sheegaysidba hadduu yahay fakaannamaa tusifuhum lmal, waxaad la mid tahay nin dambas kulul afka ugu gurayo ayaad la mid tahay, nin dambas kulul siinaya ayaad la mid tahay. kolka adiga karoonaa weeyaan, ha ku gooyaano adiga xiriiri, ha ku xumeeyaano adiga wanaaji, laakiin nin iimaan leh ayaa sidaas samaynayo. sidaas inaan samaynana yaana amrayo nabigeena calayhi salaatu wassalaam. wax alla wixii wanaageena ku jira ayuuna amrayaa, wax alla wixii dhibaato noogu jirtana wuu naga reebayaa sala allahu wasalama wabaaraka calayhi wacalaa aalih. sidaa darteed walaalayaal, waxaa lanaga doonayaa qaraabada mar walba inaan xiriirino, inaan gacan u lahaano. waxaa laga yaabaa bulshaweynta qaraabada adiga inay kugu haleeyaan, bulshaweynta laguma haleyn karo. maxaa yeelay in adeerkaaga hadduu baahan yahay adigana qani ilaahi uu kaa dhigay, dadka bulshaweynta waxay leeyihiin in adeerkiisaa maalqabeena, in adeerkiisaa gacan u leh, in adeerkiisaa wax siinayo. adigiina haddaadan wax siinaynin oo lagugu haleynayay dhibaato weeyaan. marka ilaahiyna jala wacalaa qur-aanka in badanuu ku yiri fa aati dalqurbaa xaqah wa aati dalqurbaa xaqahu, kan qaraabada u saaxiibkaa xaqiisa sii, kan adiga qaraabada kula ah xaqiisa sii. xaqiisa ayaa lagu leeyahay. bal fiiri, xoolahaaga inuu xaq ku leeyahay oo kale ayaa ilaahay uu ka cabirayaa tabaaraka wa tacaala. xaqiisa sii, maxaa yeelay xoolahaagi xaq ayuu ku leeyahay. bulshaweynta kuma haleyn kartid, waa inaad adiga gacan ula haataayoo wax siisaa. ziyaarashada qaraabada xiriirinta la xiriirinayo anwaac fara badan weeyaan. imaamu nawowi calayhi saxaa'ib raxma wuxuu leeyahay qaraabada xiriirinteedii waxay noqotaa maal in lagu xiriiriyo, waxay noqotaa khidma in asagii loo khidmeeyo, ma arkaysaa, loo adeego. waxay noqotaa buu yidhi in lasoo booqdo, waxay noqotaa in lasoo salaamo. marka waa anwaac weeyaan. markuu u baahan yahayna maal iyo garab istaag inaad maal u geysid, hadduu u baahan yahay khidma in loo adeegana inaad u adeegtid, hadduu u baahan yahay booqasha iyo salaan kaligeedina inaad booqatid oo salaantid. laakiin meel khidma iyo xoolo loogu baahan yahay haddii salaan iyo booqasho kaligiis aad ku gaawisid ma anficayso. ziyaarasho iyo booqasho waad dadaashay, waad fiican tahay, laakiin dhib baa hayso, dhibaatada kala qayb qaado. dadka isku martabo ma aha, isku darajana ma aha. ilaahay baa dadka kala fadilay. ilaahay hadduu xoogaa xoolaha uu ku dhiibay, kan walaalkaagi ahee u baahan xoolaha wax ugu taag. ilaan ilaahay baa ku amray ku leh fa aati dalqurbaa xaqahu, kan qaraabada u saaxiibka ah xaqiisa sii. xaqiisa sii micnaheeda waa maxay? xoolahaagi ayuu xaq ku leeyahay. liajli daalika waxaa wanaagsan walaalayaal qaraabada inaan gacan u yeelano. sadaqa markaad bixinaysid kow waxaa ku xaqnimo badan qaraabadaadii, kadibna sida loo kala dhow yahay. xadiid ayaa jira sadaqa oo dadka caadiga aad ku sadaqaysatid aan qaraabanima dhexdiina yaalin hal ajaraa ku sugan, ee sadaqada qofka qaraabada kula ah aad ku sadaqaysanaysidna 2 ajaraa ku sugan. ajarkii sadaqada iyo ajarkii xiriirinta, 2 ajaraad ka helaysaa. sidaa darteed walaalayaal waxaan isku dhiirigelinaynaa maadaama bil ramadaan aan ku jirno, qaraabada inaan xiriirino, qaraabada inaan booqano, qaraabada inaan gacan u taagno, qaraabada inaan ixsaan u samayno, qaraabada inaan raashin u geyno. waxaa noogu sugan liiwaan iyo aflaxitaan adduunyo iyo aakhira inaan ku aflaxno oo aan ku liiwaano. marka bishii ixsaanka ayaan ku jirnaa. bisha ramadaan waxaa loo yaqaanaa shahrul ixsaan, shahrul juudi, bishii deeqda weeyaan. nabigeena sala allahu calayhi wasalam bishaan oo kale aad ayuu wax u baxsanayay.
dabaysha khayr lala soo diray ayuu nabigeena ka deeqsi badnaa calayhi salaatu wasalaam. anagana inaan ku dayan xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam, maadaama bisha ramadaan xoolihiisa in badan uu baxsanayay, anagana inaan ku dayan calayhi salaatu wasalaam. intaa allah nagu anfaco. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.